wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan degmada Xudur ee caasimadda Bakool ayaa ka qayb galay xaflad si heer loo soo agaasimay oo lagu caleema saarayay gudoomiyaha degmada Xudur ee maamulka deegaanka. Gudoomiyaha cusub degmada Xudur Cumar Cabdullaahi Maxamuud ayaa loo caleema saaray in uu degmadaasi hogaamin doono 4 sano ee soo socota. Axmed Macalin Fiqi waxa uu kala hadlay dadka deegaanka in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay xoreynta dalka isaga oo hadalkiisa inta raaciyay Xudur sidoo kale deegaanada la midka ee go'doonsan laga kor qaadi doono culayska al-shabaab ay ku hayaan sida uu sheegay. Khudbadda wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi waxa kaloo kamid ahaa in uu ka shaqeynayo arrimaha xasilinta deegaanada ee laga xoreeyo al-shabaab iyo sidii guud ahaanba adeegyada muhiimka loo gaarsiin lahaa. Arrinta dib u xoreynta ay gabadhii sheegtay gudoomiyuhu sheegay dad badan ay sheegeen in laga qaado culayska meeshaan qorshaha dawladda number 1 hadduu sahayn waa caaradku ku jira qorshaha hadda xuduudda ka socda dawladda federaalka qayb ku leedahay madaxda dalkuna waa imaanayaan in marka dhaqdhaqaaqa la bilaabayo inuu gobolkan ka bilowdo oo gobolkan dariska loo hiiraan dhinacan miyuu ka xigaa dhinaca waa hiiraan dhinaca way Soomaa gadaal miyuu ka jiraa gobolkan dariska ay hiiraan marin raashinku u soo maru ahaan jiray Soomaa waagii hore waaye dhexda iyo la galay gobolkan hadda waad aragteen iyo gobolka ku dhagan oo galgaduud waxa weeye waxa ka socda dagaal qaraar oo khawaarijtii dalkan haysatay oo magaaladan ay u afduubnayd oo magaaladan cuna qabateeyay 10 sano la soo dhaafay sidii ayaxii bay u hoobanayaan sidii balanbaalis meel iftiina ama dab aragtay oo kale dabka ugu hoobanayaan wiilashii yaryar waxaan la ka rabaa diyaar garow inaan diyaar garowno si aan u soo afjarno maanta dawladda jirta ee Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo ajandaheeda koowaad waa dib u xoreynta dalka waa ajanda number 1 la iskama indha tiri karo shabaab oo jooga horumar baan sameeynaya shabaab oo jooga ayaa waxaan ka hadlayaa tiknoolajiyad shabaab oo jooga ayaa islaamnimo xitaa ka hadlaya shabaab oo joogan dhaqan ka hadlaya lagama hadli karo waa number 1 mashaakilka Soomaaliya waa kooxdaas argagixisada oo diidan calanka Soomaaliya oo diidan jiritaanka ummadeena oo diidan ilmaha yarkaayo Xudur jooga muxuu ku mutaystay in laga jaro raashinka diintay sheegaysa dhaqankee sheegaya ma jiro dhaqan iyo diin midna sheegaysa sidaas aaweed maanta fursad baa jirta gabdhihii iyo wiilashii heesayay runtii waan u mahad celinayaa dadku kuma dhiiran karaan Soomaaliya meelo badan jooga inay shabaab afka ka sheegaan laakiin reer Xudur xitaa waa ku heeseen way ku heeseen wayna muuqataa ififaalihii meeshaan in laga taqallusi doono waliba hees fiican oo way dhuumanayaan marka maaragtay loo soo jeesto ayay kala cararayaan waa noocaas weey meeshii calan madow iyo 10 qof ay uga tageen deegaamadii hadda waa xaggay u guureen waxaana la ka rabaa marka reeso westi oo dhan iyo koonfur galbeed dhammaan waa la wada qabaa degmooyinka oo dhanna hadda way ku jiraan cuna qabateynta meelo badan oo kamid ah waxaan la rabaa wasiiradiina way joogaan dawladda federaalkana diyaar bay la tahay ciidamadeedii meel kasto oo dagaal ka bilaabanayo in loo soo raro danab in la keeno diyaaradii wax duqeynayay in la baabi'iyo nimanka fursad weyn baan u haysanaa. dhinaca kale Axmed Macalin Fiqi oo ku sugan degmada Xudur waxa uu sheegay in mar walba dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay sidii isbedel dhan kasta loo sameyn lahaa. booqashada wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi ee Xudur ayaa imaanaysa saacado yar kadib markii uu ka degay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Cabdullaahi Xaaji Xasan.